assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada janaalka. maanta waxa aan rabaa inaan idila wadaago filim taxanaa oo Brazil ah. filimkani oo loogu magac daray 3% ama the 3%. fadlan taxadar oo si fiican u daawo. filimku waxa uu ku bilaabanayaa mustaqbalka aadka u fog, halkaas oo muujinaya in dunida loo qeybiyo laba qeybood. qaybta koowaad waxaa lagu magacaabaa offshore. dadka qaybtani ku nool waxa ay haystaan wax walba oo noloshoodii u baahnayd, sida lacag, farxad, madadaalo iyo wixii la mid ah. waxaadba moodaa sidii dad ku nool jannadii oo kale. qaybta labaad waxaa lagu magacaabaa islaam. dadkani ma haystaan wax iskuul ah, isbitaallo, shaqo, goobo lagu madadaalaysto, laakiin dadka halkani ku nool waxaa la siiyaa hal fursad oo ay ku degi karaan qaybta offshore-ka 20 sanaba hal mar. markii ay 20 sano gaaraan waxa ay maraan process lagu magacaabo processka xulashada. dadka oo dhan meesha ayay isugu yimaadaan, kaliya waxaa laga dooranayaa 3%. dadka ka gudba processka xulashada waxa ay ku noolaan doonaan nolosha farxadda iyo raaxada badan, halka dadka aan guulaysan dib ay ugu laaban doonaan noloshoodii hore ee foosha xumayd. subaxyada ka mid ah waxaa lagu dhawaaqay in processkii 104 ee xulashada uu bilowday. qof walba oo isdiiwaan geliyana waxaa laga codsaday inuu soo xaadiro goobta xulashadu ay ka dhacayso. mid ka mid ah dadka sanadkan ka qaybgeli doona waxaa lagu magacaabaa Michelle. birta dhegteeda ku xiran waxa ay fariin ahaan u sheegaysaa in ay u jirto goobtii xulashada 40 daqiiqo. qalabkani waxaa dhegta loogu xiray markii ay isdiiwaan gelinaysay. qof walba oo guulaystana dhegta waxaa loogu xiraa aaladan, taas oo ay u isticmaali doonaan kaar aqoonsi ahaan ama ID. Michelle iyo saaxiibadeeda oo lagu magacaabo Bruna oo la socda dad kale oo badan waxa ay soo gaareen goobtii xulashada. waxaa loo sheegay in dharka uniformka ah ay xirtaan inta uusan tartanku bilaaban. kadib madaxa barnaamijka xulashada oo lagu magacaabo Ezekiel ayaa waxa uu bilaabayaa inuu dadka u sharaxo muhiimadda uu leeyahay barnaamijkan. kadib khudbadiisa Ezekiel waxa uu la kulmayaa gabar ka mid ah shaqaalihii goobta oo lagu magacaabo Aline. waxa ay u sheegtay inay meesha u timid inay la socoto dhaqdhaqaaqiisa iyo qaabka uu dadka u xulanayo. Ezekiel kuma uusan faraxsanayn arrintan, laakiin ma diidi karin amarka uga yimid madaxdiisa sare. dhinaca kale ka qaybgalayaasha waxaa loo diray qolka waraysiga si loo qiimeeyo in wareegyada kale ay u gudbi karaan iyo in kale. qaybta koowaad dadka loo arko inaysan u gudbi karin qaybaha kale halkan ayay ku harayaan inta uusanba bilaaban barnaamijka. qofka Michelle waraysiga ka qaadayay ayaa waxa uu bilaabay inuu weydiiyo su'aalo nolosheeda qaaska ah ku saabsan. Michelle waxa ay shaaca ka qaaday in boyfriendkeeda ama saaxiibkeeda uu sanadkii hore ka qayb qaatay barnaamijkan, laakiin uusan dib u soo laaban. waxa ay iska dhaadhicisay inuu ku guulaystay barnaamijka, laakiin ninka wareysanaya ayaa waxa uu soo jeediyey laga yaabee inuu dhintay intii lagu guda jiray barnaamijka xulashada. si loo tijaabiyo dareenkeeda waxaa lagu amray in katiinada qoorteeda ku xiran ee saaxiibkeed uu siiyey in ay qoorta ka siibto, iyadoo aan ka labayn ayay u siibtay. sidaas ayuuna ku doortay ninkii wareysanayay. dhinaca kale nin lagu magacaabo Marco ayaa su'aalo si fudud uga jawaabaya qof kasta oo familkiisa ka mid ah si ayuu ugu guulaystay barnaamijkan. wuxuu isku qabaa kalsooni buuxda inuu ku guulaysan doono barnaamijkan, sidaas ayaana lagu doortay. sidoo kale nin lagu magacaabo Alex wuu isku dardarmay markii la wareysanayay, sidaas ayaana loogu diiday inuu u gudbo. kadib waxaa xigay gabar lagu magacaabo Joanna, taas oo aan jeclayn hadalka badan, waana gabadha ugu xariifsan barnaamijkan, sidaas ayaana lagu doortay iyadana. ugu dambeyntii waxaa wareysiga soo gaaray wiil lagu magacaabo Fernando oo ah curyaan. kaasi inkastoo uu curyaan ahaa haddana waxaa lagu doortay ka go'naantiisa ee barnaamijkan. dhinaca kale gabar ka mid ah shaqaalaha oo lagu magacaabo Agatha waxa ay ogaatay in mid jaajuusa uu ku jiro barnaamijka oo ay soo dirtay kooxda lagu magacaabo The Chaos oo kasoo horjeeda barnaamijkan dadka lagu kala qaybinayo. markii si xun loo jir dilay ayaa waxa uu sheegay xitaa kooxda cusub in ay ku jiraan jaajuusiin. Ezekiel iyo Agatha waxa ay go'aansadeen in ay raadiyaan jaajuusyadani. dhinaca kale magaaladii Islaam waxaa shir uga socdaa kooxdii kasoo horjeeda barnaamijka xulashada, waxayna dadka u sheegayaan in qof walba uu u qalmo inuu ku noolaado ama uu helo nolol fiican sida tan ay ku nool yihiin dadka offshore-ka camal. hogaamiyaha kooxdani waxa uu aaminsan yahay in aan jaajuusyadooda la qaban doonin. dhinaca kale qof ka mid ahaa kuwa aan la dooran waxa uu isdhaafiyay nafta. inta la doortayna waxaa lagu xareeyay qol kale. intaasi kadib waxaa iskaan la marsiiyey aaladii dhegta ugu xirnayd si loo hubiyo inay horey uga mid ahaayeen dadkii isdiiwaan geliyey. inta safka lagu jira Joanna waxay ogaatay in wiilka ka horeeya oo lagu magacaabo Rafael ay dhegtiisu leedahay tuliin ka badan intii la rabay. waa ay ka hortagtay, isagoo isdifaacaya ayuu ka dhaadhiciyay inay sax tahay tuliinka dhegtiisa. markii la iskaan gareeyana wuu ku guulaystay. Joanna waa ay la yaabtay, laakiin waxa ay hubtay in tuliinku uusan mid sax ahayn.
ugu dambeyntii waxaa la soo gaaray waqtigii ay sugayeen ee imtixaankii saxda ahaa. waxaa la soo hordhigay wax shaybab kala duwan leh, waxaana lagu amray dhammaantood in ay sameeyaan 9 xabo oo 6 geesood ah muddo 10 daqiiqo gudahood ah. Fernando maadaama uu curyaan ahaa, Michelle ayaa ku caawisay inuu gaaro baloogyadii laga samayn lahaa 6 geesoodka. intaasi kadib qof walba waxa uu bilaabay inuu shaqadiisa guda galo. daqiiqadihii ugu dambeeyay Michelle waxa ay ku wareersanayd halkii ugu dambeeyay ee 9 xabo ee laga rabay. isla markii waxaa caawiyay Fernando, laakiin Rafael waxa uu dhinnaa 1 xabo. sidaas darteed waxa uu ka soo xaday mid ka mid ah tartamayaashii. waqtigii sidaas ayuu ku dhamaaday, laakiin Joanna meeshii laga rabay 9 xabo waxa ay samaysay 11 xabo. markii geemkii dhamaaday, qof walba waxa uu bilaabay inuu iska eego Rafael. qof walbana waxa uu bilaabay inuu ugu waco khiyaanoole. wuxuu bilaabay inuu qof walba la dagaalamo. Joanna waxa ay Rafael ka dhaadhicisay inay isku koox noqon doonaan, waxayna u sheegtay haddii uu khiyaano inay ku diri doonto madaxa sare ee barnaamijka, maadaama qalabka dhegtiisa ku xiran uusan ahayn midkii saxda ahaa. dhinaca kale, Alina ayaa Ezekiel xafiiska ku wareysanaysa, iyadoo oo raadinaysa inay ku hesho qalad yar oo uu sameeyay si ay ula wareegto booskiisa. iyaga oo murmaya ayaa waxaa soo dhexgelaysa Agatha waxa ay Ezekiel u sheegaysaa in Michelle ama Bruno ay yihiin jaajuusyada. waa la soo kaxeeyay waxaana la weydiiyey in ay shaaca ka qaadaan labadooda midka jaajuuska uu yahay. haddii ay runta sheegi waayaan, Agatha waxay u sheegtay in labadooda la dili doono. markii Agatha ay sii jeesatay, Michelle waxa ay saaxiibteeda ka dhaadhicisay in jooska kaliya ee ay haystaan uu yahay in ay weeraraan Agatha oo ay dilaan. markii Agatha ay soo laabatay, Michelle waxa ay qorshihii uga baxday saaxiibadeeda, wayna qiyaantay. sidaas ayaa Bruno kaligeed ay u weerartay Agatha. Bruno sidaas ayaana lagu dilay. kadibna waxaa shaaca laga qaaday in Michelle ayba ahayd jaajuusada dhabta ah. inkastoo iyada iyo Michelle ay saaxiibo ahaayeen tan iyo yaraantoodii, haddana saaxiibadeed sidaas ayay u gashay si ay ugu guulaysato qorshaheedii weynaa ee ogaanshaha xogta offshore-ka. xitaa sheekadii saaxiibkeeda waxay ahayd sheeko aan jirin si loo doorto oo wareegyada xiga ay ugu gudubto. sababta kaliya ee Michelle ay barnaamijkan uga qaybgalayso waxa ay tahay in ay ka war doonto walaalkeed oo ka mid ahaa dadkii sanadkii hore ka qaybgalay ilaa haddana aan warbixin laga helin. dhinaca kale, waxaa la ogaaday taariikh nololeedka Fernando, kaas oo uu soo barbaariyey oo uu ku dadaalay aabihiis si uu ugu guulaysto barnaamijkan nolol fiicanna uu u helo maadaama uu curyaan ahaa. intii lagu guda jiray qiimeyntiisa caafimaadka, Fernando waxaa la siiyay daawooyin xanuunka ka yareeya. aad ayuuna ula jaabay maadaama uusan weligiis wax daawo ah qaadan. dhakhtaradda waxay u sheegtay haddii uu ku guulaysto barnaamijkan in uu heli doono daawo aad u heer sareysa, mustaqbalkana laga yaabo inuu lugihiisa ku socdo. Fernando aad buu ugu farxay arrintan. waxaa la soo gaaray xilligii tijaabada labaad. waxaa loo qeybiyey kooxo waxaana la geliyey qolal kala duwan. qolka la soo geliyey waxaa kula jiray 4 boombale oo wejiyadooda ay ka muuqato dareemo kala duwan. kooxdani waxaa laga rabaa inay ka fakaraan waxa ku dhacaya naagta wadata dharka buluuga ah. isla markiiba waxa ay bilaabeen inay taxliiliyaan jawiga meesha. taxliilin kadib, Fernando waxa uu soo jeediyey in naagta la sumeeyey, ninkeedina uu yahay ninka horteeda fadhiya, maadaama labadooda lugahoodu ay dhiiqaysan yihiin ayna marti u ahaayeen lamaanaha kale ee meesha fadhiya. laakiin haddana waxay arkeen iyadoo eegaysa nin kale oo xiriir hoosaad ka dhexeeyey. sidaas darteed ninka xaaskiisa masayr dartiis ay u sumaysay. tanna waxaa sidoo kale xoojinaya dareenka wejiga naagta kale ka muuqda. kooxdu waxa ay isku raaceen arrintii, laakiin Rafael ayaa ka soo horjeestay arrintii, waxaana uu soo jeediyey in naagtani ay allergy qabto, taasoo ay sababtay saacadda ay xiran yihiin dadka kale, halka iyaduna ay xiran tahay fanaanad aan silfar ahayn iyo katiinad alwaax laga sameeyey. waxa uu u sheegay in silfarku uu kiciyey allergiga, sababta ay ninka kale u eegaysana laga yaabay inuu digtoor yahay. markii ay si fiican u baareen, waxa ay arkeen sawirro muujinaya jirka bini'aadamka, taas oo muujin karta inuu ninku dhakhtar yahay. laakiin weli waxa ay la yaaban yihiin muxuu wejiga naagta kale uusan u muujin wax dareen ah oo la aqrin karo. laakiin Joanna oo aamusnayd ayaa waxa ay soo jeedisay in naagta kale ay camoolo tahay, sidaas darteedna aysan u muujin wax dareen ah. sidoo kalena uusan agteeda oolin laambadda wax lagu aqristo sida dadka kale. markii ay eegeen qaanadaha kale, waxay ogaadeen buug uu ku qoran yahay farta bareelaha ee loogu talagalay dadka camoolayaasha ah in ay wax ku aqristaan. ugu dambeyntiina soo jeedintii Rafael waa ay isku raaceen inay sax tahay. isla markiiba waxaa laga taqalusay nin ka mid ahaa kooxda, maadaama uu iska fadhiyey meesha oo uusan ka qayb qaadan doodoodii socotay. wareegga saddexaad, Ezekiel waxa uu Alina ka codsaday inay ka caawiso barnaamijka maadaama ay shaqaale yara hayso.
waa ay ka aqbashay laakiin waa ka shakisay waxa uu damacsan yahay. sidaas darteed markii uu barnaamijku dhammaaday waa ay daba raacday, waxayna aragtay isaga oo dhismaha kasii baxaya, wuxuuna xirtay dhar bolol ah. wuxuu bilaabay inuu aado qaybta islaamka ahayd. dhinaca kale inta soo hartay tartamayaasha waxaa la geeyey qolal kale oo qaas ah. wareegan waxaa loo dhiibay 6 koon iyaga oo 7 qofood ah. kooxda waxaa loo qabtay 15 daqiiqo si ay u go'aansadaan qof laga taqalusayo si 6da soo hartay ay u kala qaataan. isla markiiba Rafaa'il wuxuu xoog ku qaatay midkiisa, laakiin Marco ayaa xoog uga qaaday. kadib gruubka ayaa waxa ay go'aansadeen in laga taqaluso Rafaa'il, laakiin isla markiiba Michelle ayaa waxa ay codsatay in Juwayna laga taqaluso. Juwayna waxa ay Rafaa'il ku qasabtay inuu difaaco, haddii kalena ay ku diri doonto madaxda sare. wuu yeelay, wuxuuna bilaabay inuu codeeyo Fernando maadaama uu yahay curyaan. laakiin Fernando waxa uu u sheegay in dhakhtarka uu la kulmay uuna u sheegay haddii uu ku guuleysto barnaamijkan ugu dambeyntii uu lugihiisa ku socon doono. ugu dambeyntiina waxa ay go'aansadeen in qof walba uu nasiibkiisa tijaabiyo. dhinaca kale Alina waxa ay kaamirada qarsoon ka eegaysaa Ezekiel oo u sii socda xaafadii islaamka. isla markiiba waxa uu arkay kaamirada oo midabkeedu cagaar noqday. wuxuu ogaaday in la daawanayo. wuu orday waxaana ka daatay qudaar uu watay. maadaama aan wajigiisa la arkayn, Alina waxa ay go'aansatay inay qalab kale ku fashiliso Ezekiel. dhinaca kale gruubkii waxa ay go'aansadeen in ay maro sida suufka u samaysan uu nin walba dhinaciisa ka jiito, ninka ugu jabka yaraadana sidaas looga taqaluso. ugu dambeyn Juwayna ayaa ku guuleysatay iyada oo heshay jabkii ugu yaraa ee marada. markii ay ka soo baxeen qolkii ninkii ugu dambeeyay waxa uu xaqiiqsaday in kooxdiisa la xaday oo Juwayna ay qaadatay. sidaas ayuuna ku haray, waxayna dib ula midowday raggii kale ee gruubka. fadlan subscribe dheh si aad ula socoto qaybta xigta ee taxanaheena. mahadsanid.